waad khaldantay ciise naagurgura awraaja waxay ahaayeen ugaas buux iyo ugaas xasan xirsi oromo qaabkay ku soo gashay in magaalada dirdhabe ay maamul qabato oo iyaa u horreeyey bismillaahi raxmaani raxiim waxaan maanta halkan jawaab aan ka siinaynaa hadalladii deelqaafka ahaa ee dhibaatada weyn nagu ahaa annaga haddaan Soomaali nahay uu doctor Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka jeediyey baarlamaanka Itoobiya hadalladaas waxay ahaayeen ra'iisul wasaaruhu wuxuu yidhi dirdhabe waxay ka tirsanaan jirtay Oromiya halkaas waa khalad maad aragtay taariikhda dirdhabe waxa loo baahan yahay inaan dib aan ugu fasirno si yaroo kooban dirdhabe say ku noqotay magaalo iyo sidii maamuladii kala dambeeyey ay maad aragtay siday ahaayeen oo annagoo og in maamuladii kala dambeeyey ilaa ismaaciilow aadan oo waqtigii tigreega ahaa wixii ka horreeyey ay Soomaali maahine cid kale aynan maamulka qaban xilligaa ra'iisul wasaaruhu khaladkan kii u horreeyey maaha uu Soomaali ka galo wuxuu Soomaali khaladka kaluu ka galay waxa weeyaan socdaalkiisii ugu horreeyey uu ku tegey Bahirdar isagoo hadlee wuxuu yidhi dirdhabe jugraafi ahaan waxay ka tirsan tahay Oromiya buu yidhi waa khaladkiisii horreeyey kanna waa kii labaad marka waxaan ku qasbannahay inaan ra'iisul wasaaraha intii garab joogtay hadday beri kari waayeen taariikhda dirdhabe in annagu aan halkan waxoogaa u sheegno dirdhabe intay magaalo noqon waxaa deganaa reere baadiye ah oo ciise iyo gurgura ah labadaa reer baa deganayd oo maad aragtay kolna ahaa reer miyi kolna ahaa beereley hadhuurka beerta kolkaa dabadeed waxaan ka hadlaynaa imika waxaan ka hadalnay waa tareenkii ka hor tareenka dabadeed maxaa dhacay